بسم الله الرحمن الرحيم. aan wax ka baranno weydiimaha kale ah what is a share and what is a shareholder. aan ku bilowno inaan ogaano micnaha share ama saami, sidoo kalena loo yaqaano stock. haddaba saami waa lahaanshiyaha qayb ka tirsan shirkad ama shirkadda oo dhan. si kale haddaan u dhigno, waa in aad leedahay qayb ka tirsan hanti shirkad ama shirkadda oo dhan. haddaba waxaa shirkadda wax ka lahaan karo shaqsi ama shirkad kale. su-aasha meesha ku jirta ayaa ah, waan garan karnaa in qofku saami ka iibsado shirkad si uu dakhligiisu u kordhiyo, ee maxaa sababa in shirkad tusaale ka shaqaysa isgaarsiinta ay saami ka iibsato shirkad bixisa adeega korontada? haddaba shirkadaha si ay u yareeyaan khasaaraha una kordhiyaan ilaha ay ka heli karaan dakhliga ayay shirkad kaleeto saami ka iibsadaan. aan fiirino dhanka kale, what is a shareholder or a stockholder. horta labada eray ee shareholder iyo stockholder waa isku micno. waa eray ama magac loogu yeero qofka ama shirkadda haysata saamiga shirkad kale. tusaale, maadaama aan soo aragnay in shirkadda isgaarsiinta ay saami ku leedahay shirkadda bixisa adeega korontada, haddaba shirkadda isgaarsiinta waxaan ugu wici karnaa shareholder ama stockholder. mahadsanidin, waa inoo mar kale haddii rabbi idmo.